Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. dagaalo goosgoos ah oo u dhaxeeya al-shabaab iyo daacish oo saaka ka socda deegaano ka tirsan gobolka bari dood kulul oo ka dhalatay hadal uu yiri madaxweynaha wadanka Uganda kaasi uu ku yiri Soomaaliya inaysan lahayn dawlad awood maamul oo dalka dhan wada gaarta madaxweynaha Djibouti oo ka hadlay qorshaha ciidanka AMISOM ay uga baxayaan Soomaaliya booliiska Kenya oo gacanta ku dhigay dhalinyaro al-shabaab looga qorayo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya hogaamiyaha mucaaradka Cameroon oo xabsiga la dhigay madaxweynaha Faransiiska oo la kulmay dhigiisa Masar subax wanaagsan waa talaado 29ka bisha koobaad sanadka 2019 ku soo dhawaada faahfaahinta warkaasi dagaalo goosgoos oo u dhaxeeya ururada al-shabaab iyo daacish ayaa la soo sheegaya in saaka uu ka socdo deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka bari rijaal cabdi ayaa faahfaahinaya dagaalo u dhaxeeya al-shabaab iyo daacish ayaa weli ka socda deegaanka ceelka Miraale oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sida xaqiijiyeen dadka deegaanka xalay rasaas goosgoos ah ayaa ka socotay deegaankaas waliba iyo sidoo kale deegaano kale oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen daacish iyo waliba al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayaan dhawaqa rasaasta socota oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midkoodna aysan wali xaqiijin dagaaladan waxa ay yimaadeen kadib markii la sheegay in al-shabaab ay isku dayeen in kooxda daacish ay ka saaraan deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka bari gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Qandala ee gobolka bari iyagoo isku dayaya inay halkaasi gacan ku hayntooda ay la wareegaan al-shabaab ayaa isku dayay in kooxda daacish ay kala wareegaan awoodda deegaanada buuraleyda ah oo ku yaala gobolka bari ee maamulka Puntland 18 bishii December ee sanadkii soo dhaafay 2018 ayay ahayd markii al-shabaab iyo daacish oo dagaal ku dhaxmaray meel aan ka fogeyn dhulka buuraleyda gobolka bari halkaas oo al-shabaab ay sheegeen in ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda daacish kadib markii howlgal halkaas ay ka sameeyeen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaana wali wax warah ka soo saareen dagaalka u dhaxeeya daacish iyo al-shabaab ee ka soconaya deegaano ku yaala gobolka bari ee Puntland iyadoo ciidanka BSF ta Puntland ay ku sugan yihiin deegaano u dhow goobaha ay ku dagaalamayaan al-shabaab iyo daacish madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni oo la hadlayay golaha garsoorka wadankiisa ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalal aan awood maamul oo wada gaarta dalka uusan ka jirin taas oo dood badan ka dhax abuurtay bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan kuwaas oo qaarkood doodahooda ku soo bandhigayay baraha bulshada ay ku xiriiraan waxana dadka qaarkood ay ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya sida xildhibaano iyo senataro madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay jiraan dalal badan oo aan lahayn dawlad maamusho isagoo tusaale u soo qaatay wadanka Soomaaliya Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay shirka sanadeedka ee hay'adaha garsoorka isagoo xusay in Soomaaliya aanay lahayn dawlad maamusho waxa uu yiri waxaa jira wadamo badan oo aan lahayn dawlad way jiraan laakiin ma haystaan hay'ado abaabulan oo maamula Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamadaasi waxaa jira dalal kale laakiin ma sheegayo sababo diblomaasiyadeed awgeed state means organized authority over the country. You can therefore have a country without a state, and you have got many examples where there is a country but there is no state, there is no organized authority over that land. Somalia is one example. There are quite a number of examples. For diplomatic reasons, I don't want to mention them. madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni markuu hadalkaasi yiri waxa aad uga hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyiin xildhibaano ay ka mid yihiin iyo siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabta Soomaaliya ayaa arintaasi ka hadlay dadka ka hadlay arintaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Mahad Maxamed Salaad
oo sheegay in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni hadalkiisa uu muujinayo halka ay Soomaaliya joogto, isaga oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in ay arrintaasi wax ka qabato oo ay la timaado loolanka wadamada geeska Afrika ay u baahan yihiin muujinta in dowlad ku filan dalka oo dhan ay ka jirto Soomaaliya, iyo in caalamka intiisa kale la tuso in Soomaaliya ay leedahay awood maamul oo wada gaarta dalka oo idil. dhinaca kale senator Xuseen Maxamuud oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna waxa uu aad u dhaliilay sida uu warka u yiri Yoweri Museveni, isaga oo sheegay in ay weli jirto nuglaanshaha Soomaaliya ay u nugushahay baahida AMISOM, laakiin taas bedelkeeda ayuu yiri in heerka la gaarsiiyo Soomaaliya aanay gaarsiisnayn, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay leedahay awood ay ugu filan tahay in dalkeeda ay maamulato, waxaana uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin hadalka Yoweri Museveni. sidoo kale waxaa jiray dad fara badan oo ku kala qaybsanaa arrinta Yoweri Museveni, taas oo qaar ay ayidsanaayeen in awoodda maamul ee dalka ka jirta aanay ahayn mid wada gaarta dalka oo idil, halka kuwa kale ay u arkayeen gaf uu Soomaaliya ku sameeyey maadaama uu isticmaalay kelmadda ah in Soomaaliya uu tusaale u soo qaatay wadamada kale ee uu sheegay inay jiraan in ay leeyihiin awood maamul oo wadanka dhan aan wada gaarsiisnayn, inuusan u sheegi karin sababo la xiriira diblomaasiyadeed, taasoo dad badan ay ku micneeyeen sababta Soomaaliya uu si cad ugu qeexay halka wadamada kalena uu uga gaabsaday arrimo diblomaasiyadeed awgeed. Uganda ayaa xilligan waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo badan, gaar ahaan kuwa ugu badan ee AMISOM magaceeda ku howlgala, waxaana ay ilaaliyaan xarumaha dowladda sida madaxtooyada, dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan hadalka madaxweyne Museveni, balse waxaa loo arkaa in aanay dowladda ku degdegi doonin go'aanka ay ka qaadanayso hadalka Yoweri Museveni oo ay xilligan gaarto marka loo eego Uganda oo ka mid ah dalalka gobolka ugu xoogan, ciidanka ugu badan ee AMISOMna ay ka joogaan Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa ka hadlay qorshaha howlgalka AMISOM ay uga baxayaan Soomaaliya. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. madaxweynaha dowladda aynu walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay qorshaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala ay uga baxayaan guud ahaan dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele in AMISOM iyo dowladaha taageera dowladda Soomaaliya sida dowladda dalkaasi Turkiga ay bixiyeen dadaal dheeraad ah kuna bixiyeen ciidamada dowladda, waxaana uu sheegay hadda in ay soo gaarsiiyeen heer ama tallaab koowaad oo ciidamada ay ku hanan karaan amniga guud ee dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynaha Djibouti in ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska iyo militariga haddii ay iskaashadaan in ay awood u yeelan karaan sugitaanka amniga guud ee dalka, waxaana uu sheegay in ay ciidamada weli ay wax ka dhiman yihiin, balse hadda ay gaarsiisan yihiin heer lagu aamini karo amniga guud ee dalka. waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in tababar dheeraada la siiyo ciidamada si ay si buuxda dalkooda ay u sugaan. waxa uu sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele xilligan in la joogo waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay arki lahaayeen ciidan Soomaaliyeed oo ammaankooda sugaya, isagoo sheegay in muddo ka badan 10 sanadood shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan ciidamo aan ahayn kuwa dalkooda u dhashay. dowladdu iyo dowladahan AMISOM ku jira iyo kuwa kale sida Turkiga oo kale ah waxay dadaal weyn ayay geliyeen sidii ciidamada Soomaalida loo nooleyn lahaa, loo qalabeyn lahaa. wax badan way maqan yihiin, laakiin maanta way karaan in ay maamulaan difaaca. ileen dowlado la dagaalamaya ma jiraan oo diyaarado iyo taankiyaal iyo wax lama jiraan. intaase nabadeynta wadankase military iyo booliisba hadday iskugu tagaan inay xasilin karayaan ayaan anigu qabaa. bilowgiina sidaa baan odhan jirnay annago, dadaalkeennuna annagaa ugu yar dadka, annagaa ugu ciidan yar, laakiin ujeedadeennu waxay ahayd ay maantana tahay in loo sii dayo shay-an fa shay-an looga baxo oo dee la tababaro. halkan qaar aan ku tababarno iyo Soomaaliya dhexdeedaba inaan ku tababarno way jiraan.
karaamadana waxaa u wanaagsan in shacbiguba uu arko ciidankiisii oo isgarab taagay oo la socda oo ilaalinaya inay arkaan. in badan bay ciidan shisheeye la noolaayeen. maantase dee waxaan u malaynaya in waktigeygii tahay in dee yani dhaqaalo wixii la siin karayna. ciidamada waa qorshaha kabixitaanka ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ayaa socda, waxaana jirta in sanadihii lasoo dhaafay dhowr ka tirsan ciidamada amisom ee guud ahaan dalka ay ka baxeen, inkastoo amisom ay shaaca ka qaaday inaysan ka bixi doonin ilaa maa ciidamada soomaaliya ay awoodi karaan inay dalka sugaan amnigiisa. waxaana jooga ciidamo ka socda dalalka uganda, burundi, kenya, etoobiya iyo jabuuti, kuwaas oo qayb ka ah ciidamada midooda afrika ee amisom, iyadoo xusud ay mudan tahay in ugandana ay tahay tirada ugu badan ee ciidamada midooda afrika. booliiska wadanka kenya ayaa gacanta ku dhigay koox dhalinyaro ah oo la sheegay in loo qorayay dagaalyahanada ururka al-shabaab, kuwaasoo laga qorayay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. cali xasan ayaa faahfaahinaya. ciidamada booliska dalka kenya ayaa gacanta ku dhigay koox dhalinyaro ah oo loo qorayay inay ka mid noqdaan al-shabaab kadib howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. booliska ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyarada la qabtay ay isugu jiraan rag iyo dumar, islamarkaana ay ku howlnaayeen abaabul ay ku doonayaan inay ku biiraan al-shabaab. taliyaha ciidanka booliska dalka kenya ayaa warbaahinta u sheegay in laga soo qabtay dhalinyaradan deegaano badan oo ay qayb ka tahay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska dalkaasi kenya, dhalinyarada la qabtay ayaa ah kuwo waxbartay islamarkaana ay haystay shaqo la-aan sanadihii ugu dambeeyey. waxa uu sidoo kale sheegay inay ku raad joogaan xubno la aaminsan yahay inay qaabilsan yihiin qorista dhalinyarada ku biiraysa al-shabaab. warkaas subax wuxuu kaga imaanayaa idaacadda risaale ee magaalada muqdisho. wasaaradda cadaaladda ee wadanka mareykanka ayaa dacwado dhowr ah waxa ay ka gudbisay madaxa dhaqaalaha shirkadda tiknolojiyadda ee hawaii ee laga leeyahay wadanka shiinaha. dacwadaha laga gudbiyey waxaa ka mid ah waxa isdabamarin lagu sameeyey bangiga iyo fiilooyin sharciga mareykanka oo waa bangiga iyo fiilooyin sharciga mareykanka oo la baalmaray iyo xatooyo loo geystay shirkadda tiknolojiyadda ee T-Mobile ee laga leeyahay mareykanka. mas-uulka ugu sarreeya shirkadda hawaii ayaa waxaa bishii aynu soo dhaafnay lagu xiray dalka Canada kadib markii uu mareykanka ka codsaday in la xiro, taasi oo xilligaasi lagu soo eedeeyey in ay baalmartay sharciga cunaqabateynta ee la saaray waa sharciga cunaqabateynta ee lagu soo rogay wadanka Iiraan. ha yeeshee kiiskaasi ayaa waxaa uu xumeeyey xiriirka ka dhexeeya shiinaha iyo Canada iyo mareykanka. madaxa shirkadda hawaii ayaa waxa ay madaxa shirkadda hawaii ayaa waxa ay labaduba iska fogeeyeen eedaha loo soo jeediyey ee ah inay ku xadgudbeen shuruucda wadankaasi iyo sidoo kale in ay khaladaad ka sameeyeen hanaanka ganacsi ee wadanka mareykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa dhammaan cunaqabateenadii Iiraan laga qaaday sanadkii 2015 dib ugu soo celiyey, oo xitaa uu ugu sii daray cunaqabateen kale oo dheeraad ah. taas ayaana keentay in mareykanka uu il gaar ah ku eego shirkad kasta oo ganacsi oo xiriir la leh dowladda wadanka Iiraan. warkii subaxoodii kaga imaanayay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho. dhegeystayaal saaka waa naga intaa warkeenan cidda uu seego radio risala.com ayay dib uga heli karaan.